السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة هودا ku xiran bartiyaga Facebook-na waxaan leeyahay caweysin wanaagsan meel walbood ka joogtiin shanta qaaradood ee caalamka wal waxay ii kaadi aawad wal isku dhageeyaa walaal صاحبنا شرفت اللي بالعرض دقيقة إمكاني أنا يكون متر كذا أسبوع سنة فضل سكنة إيكادي بقى محوري عمسكي محوري هذا صوت جسي أنا قنسن حتوك درتاوسن نسيك عليها يكسن أيا وإلي دعيسن عوضة اسكا عوضة واحد كرباشة أمانسن أراكسن اللي تترتري أمانسن أغلقسن بطا انتيسن أيان أبراسي توسن إيكا يا عمسكي مركوا ما سنتاي صاحبة شرفت اللي إقرأ لي هذا أنت يرى عنكم مشغول سناحري أنت براها كله bulshada waad mahadsantihiin qiimaha ay qadarinta aad ii haysaan anna waxaan idin leeyahay sidoo kale waad mahadsantihiin waxaan rabaa caawa inaan dabcan wax yar ka iftiimiyo arimihii ugu dambeeyay Soomaaliya dhamaan saaxiibada sharafta leh Farxaan Cali Xalan iyo dhamaan friends halkan igula jira dabcan ay salaamay maadaama mid aan u dhihi karin Umar Maxamuud Amoore iyo hebel aan dhihi karin qeybaha dambe barnaamijka igala qayb qaadan doontaan waxaan idin leeyahay salaan kalgacaltooyo iga gudooma meel walba joogtaan waxaana mar walba idinku helanahay soo gudbinta mowduuc idhiisa galiya inagoo marka dabcan aanan cidna ku xad gudbeen ha noqoto mucaaradka dawladda ha noqoto dawladda federaalka ee Soomaaliya si asluubaysan in loo hadla ayaa xigmada lafteeda dabcan laga raadin karaa qodobada caawada aan barnaamijkan inaan ku qaada dhiga rabo waxa kamid ah kiiskii qalbi dhagax iyo golaha baarlamaanka Soomaaliya oo shalay ka dhawaajiyay dabcan wasiiradii gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dagaalka madaxweyne Farmaajo uu cilaamiyay dabcan ciidankii Soomaaliya iyo mishaarkoodii ma heleen mas'uuliyado halkee lagu maareeyaa sadaqliga gobolka Banaadir lacagaha ka soo xarooda doorashada Somaliland mal oran kara dabcan kulmiya guuleystay mise wadani inta xogta ka hayno faiis wadanisa maxay kaga duwan tahay Aamina Dhool intaas ayaan rabaa barnaamijka caawa inaan idinku faaqiyo anigoona soo koobayo waan mahadsantiin marka hore waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan ku bilaabo baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ka dhawaajiyay kiiskii qalbi dhagax iyagoo markaa kalfadhigii baarlamaanka uga dooday dhageystana guddigii Mariin Cariif hadaan qaldaneen magaceedu ay madaxda u ahayd baaritaanka kiiska qalbi dhagax ay soo gudbiyeen inkastoo golihii baarlamaanka siyaabo kala duwan ay uga hadleen kiiskii qalbi dhagax anigu ma oranayo Cabdiqaadir boos ahaan ma dhahayo ama dawladdan mucaaradsanahay ama dawladdan taageersanahay laakiin waxaan ahay shakhsi u taagan inaan dalkayga iyo diinteyda iyo sharafkayga iyo cizigayga si asluubaysan uga hadlo wixii igala gudboonna aan ka dhawaajiyo haddii dawladdu wax wanaagsan qabatay inkastoo anigu shakhsi ahay aan waxba ku soo kordhin karin dawladda haddana qofka Soomaaliyeed fikirkiisu mar walba waa muhiim in la dhageysto hadday noqoto madax hadday noqoto shacab iyo culimada caam intaba
kiiskii qalbi dhagax inkastoo aad ka wada dharagsantii siyaabaha uu ku imaado khilaafka Jawaari iyo Xasan Cali Kheyre iyo sababta ee la isugu culaadinayo haddana muhiimadda shacabka markaan ka eegno kiiskii qalbi dhagax boqolkiiba boqol kiiskii qalbi dhagax baarlamaanka la horgeeyay intaan laga dhawaajin ka hor oo aan la horgeyn oo dhahay bari Jawaari wuxuu dhahay waxaan horgeynaynaa baarlamaanka wallaahi billaahi magac ilaahay baan ku dhaartay waa habeen isniin soo galaysay waxaan ogaa in loo saarinayo Sambaloolsh in loo saarinayo dadka siyaasadda aad uga dhundaleela dibcan waa ogaayeen Sambaloolsh taliyihii nabad sugiddu ahaa dhanka siyaasadda Allah u naxariista laga dhahaa hadda qofka markuu siyaasadda ka tago dabcan wuu ka dhinta siyaasadda waa qof caadi hadda marka Sambaloolsh in lagu eedeeyo waxa uu soo kordhinaysa shacabka Soomaaliyeed nin xilka laga qaaday xitaa haddii uu joogi lahaa Sambaloolsh maanta xilka laga qaadi lahaa haddana xilka waa laga cun laakiin yaa mas'uuliyadeeda leh Sambaloolsh madaxweynaha رئيس الوزراء معارض كي محافظ كي انت waxaan leeyahay bal si fiican igu dhuglaada dalkan inaga naga dhaxeeya ma aan aniga farmaajo jecelahay ma aha inaan aniga farmaajo necbay waxba noo soo kordhisay marka xaqiiqadu hadalna dalkan wuxuu u baahan yahay dhalinyaro kacdoon samaysa dalkan wuxuu u baahan yahay dhalinyaro aqoon leh dalkan wuxuu u baahan yahay dad qabiilka ka tanaasulay dalkan wuxuu u baahan yahay dad gacan bir ah ku qabto dalkan wuxuu u baahan yahay dhalinyaro ay ka go'an tahay inay xifdistaan dalkooda waxa maalin walba dhimanaya ama shabaabku dilaan waa dhalinyaro waxa ciidanka dawladda qoray xabada kaga fakato waa dhalinyaro ama bajaaj ha wadaan ama shacab ha noqdaan ama shabaab ha lagu tuhumo waxa la qarxa ku dhimaado waa dhalinyaro waxa badda ku dhinto waa dhalinyaro waxa soo dabcan dhalinyarada ayaa la rabaa muhiimadda kuwaad inaan saarno annaga hadda dhalinyaro nahay waxaan rabnaa qalbi dhagax ma aha maanta nin aan meel cad ku fiirsan karna ma inagoona dawlad mucaaradeen dawladana taageereenin qalbi dhagaxan ka hadlaynaa qalbi dhagax farmaajo haddii fiiri madaxweynaha Soomaaliya Allah sharfo meeshuu jooga baa waan salaamayaa laakiin anigu Cabdiqaadir Boos madaxweynaha ka aqli badnay madaxweynaha Soomaaliya waxa laga rabaa intuu meel soo fariisto inuu dhaho qodobka inaan ku dheeraado ma rabo haddii uu wax ka og yahay qalbi dhagax iyo haddii uu wax ka ogeen labadaba inuu dhaho ama waan ka ogaa ama kama ogi madaxweynaha sababta uu uga aamusan yahay maxay tahay dhalinyaro ama farmaajo jeclow ku ilma adeer la noqo ama Xasan Cali Kheyre ka soco ama mucaarad ka soco ama wadanimo u hadal adig ku taal laakiin waxa isweydiisa hal su'aal cawada ku jiifo dalkan mas'uula ka saaran maha mucaarad ina wax ku inkirtid muxaafadna ku dhaliishid farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre maalin walba waxay ka hadlaan waxa danta qaran ku jirto Soomaha waa isku raacsanay ilaa madaxda qaranka maxay uga hadli leeyihiin baarlamaan meel noo dhig wasiir isheest meel noo dhig xildhibaano kacsan meel Jawaari wax nafsan meel noo dhig muxuu farmaajo uga hadli leeyahay intuu meel soo istaago dhibaatadii qalbi dhagax maadaama malaayiin Soomaaliyeed ay wali dhagahooda ka sii guuxayso madaxweynaha kamuusan hadlin ilma adeeryaal waxaan rabnaa inaan garta inta ku gooyno madaxweynaha qalbi dhagax kama hadlin idmiinis arintaasi ama waa uu la xishooyay oo ceebay la noqotay ama waxbuu ka ogyahay balankaas ah inuu ka aamuso haddii uu wax ka ogaa oo balankuna saa ahaa waxaa la rabay maadaama baarlamaanka hor imaaday inuusan weyse u dhornaan madaxweynuhu uu ka hadlo shacabka waa la qanciyaa ilaa haddii uu wax ka ogeen horta waa ceeb madaxweyne ahay dalkan iyo diintan iyo danta shacabka u dhaartay qalbi dhagax markii la dhiibayna madaxweynaha wax kama ogaa hadalkii iigu fool xumaa waaye burburkii siyaad bar wixii ka dambeeyay inta dawladda curanayeen ama dhalanayeen fool xumadu ugu weynayd waxay tahay madaxweynuhu waxba kala ma socda qalbi dhagax de marka madaxweyne ma tiidin qani micneeda waxaba u ron inuu dhaho madaxweynaha waxaba u sharaf badan inuu dhaho waxbaan ka ogaa Ethiopia heshiis naxmar in kasto sharci caalami anaga iyo Ethiopia inoo dhaxeen oo maxaabiis isweydaarsi ah haddana maanta baarlamaanka haddii uu dhaho waa qalad xukuumaddan ha ka laabato kiiska qalbi dhagax waa inay soo celiyaan waa in aan onlef la dhaho argagixis waa qalad oo onlef looma aqoonsana it means David Cameron kama aqliya farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre oo midowga Yurub markay ka go'een David Cameron oo uu leeyahay shacabkiisa in lagu sii jiro AU ama midowga Yurub shacabkiisna ay doorteen afti qaran kadib in laga go'o baarlamaanku waa shacab de halkan Soomaaliland shacab ma coday mugta xilku iska dhigay haddii maanta la dhaho golay wasiirada go'aan qaldan inta gaareen qalbi dhagaxna la dhiibay de dawladda iyo madaxdeeda maadaama golay wasiirada ayba dhaheen argagixisu ahaa iyagana waxbay ka ogaayeen
marka madaxweynaha sharaf iyo qiimo waxa u leh maanta anigu ma dhahayo saddexdaas qof afrikaan isma casilo laakiin qiimo iyo qaay u lahan leed maanta camal waa scandal waa fadeexa waay adduunku waa la iska casilaa taas waa ma aan ka tagan wax badan ay naga dhumin dadka kiiska qalbi dhagax ku xiraayay wasiir Siraaji oo madaxda mucaaradka odawaa iyo mahad salaad ama madaxda mucaaradka dabcan dadka dawladda hadda dhaliilsan dhahaaya Siraaji way ka aamuseen war waxna waa masiir umadeed waxna waa dambi dal fiiri masiirka wax ciyaar ma aha masiir umadeed oo Soomaali ah iyo wax dambi dalka dhexdiisa ka dhacay two parts way wasiirka ninka dilay Siraaji ciidid ninka la dhaho ama hal dilo ama hal daayo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa go'aankaas leh qof shacab ma gaari karo madaxweynahan gaari karin anaan gaari karin idinka qiimaha la gaari karin maxkamadda ciidamada qalabka sida heerka sida waxa ayaa loo waafajiyay marka qalbi dhagaxne dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa laga dhaxwato dal cadow loo geeyay isagoo aad xasuusantihiin dagaalkii 77 uu ka qayb galay bal ka waran dawlad aan la dagaalaysay 77 oo ilaa haddana aad la dagaashan tahay markii dadkaaga ku dhiibaan ee ayaga farta laga saaro dawladdaas maxaa dareenkaagu noqon lahaa bal adigu qalbi dhagax iska soo qabee qalbi dhagax dhibistiisa 4,000 oo qof oo Soomaaliya ka qiimo badan gudaha ku dhimato anigu fikirtayda oo anaga iska dilno wax weyn oo micna kuma fadhiyaan 4,000 oo qof marka anaga iska dilno of course micna qiimo la way leeyihiin dadku laakiin Soomaaliya iska dishay meel loo raacdo ma laha adduunku kuma cambaareen kartid adaa gacmaha isku toogatay laakiin qalbi dhagaxan dhiiba dawladda u dhiiba wax weyn ila tahay anigu ama Israa'iil loo dhiibo ama Mareykan loo dhiibo ama Sacuudi loo dhiibo Ethiopia cadawayga ma dhahay aniga waa dal doors ah hatta Yemen loo ma dhiibi karo qof muwaadin Soomaaliyeed in my point of view saas waaye aniga leema dhiibi karo Sacuudi oo dal Islaam ah oo calankooda ashaadka yahay la ilaaha illa Allah Muhammad Rasulullah ima dhiibi karta aniga because dalkayga ma aha Ethiopia waa saas oo kala de dal shisheeyo dhan ayaan qof Soomaali loo dhiibi karin ayaa aniga ceeb ila tahay marka baarlamaanka maadaama uu soo gudbiyay inkastoo sida odawaa sheegay kiiska macata wali ma dhameystirna waa in dusha ay saartaan xukuumaddu waa in madaxweynuhu dusha saarto waa in shakhsi aan tagin mid nool la saaro ilan sabiro shadee idminis wuu tagay siyaasadda uu ka tagay way sahlantaa wax walba in loo saaro taas kiiska qalbi dhagax iyo Siraaji inay waxba iska gelin ayaan ku cadeynayay qodobka labaad wasiiradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Dr. Yaas Marin Qaasim iyo Sheekh Umal ayaa arintan dagaal ka dhaxeeyay isbuucan maxaan ka naqaanaa labadooda waxaan rabaa inaan ku dheeraanin laakiin si islaamnimo leh oo Soomaalinimo leh oo aqliga saliimka ayaan rabaa inaan uga sheego horta sheekha aan jeclahay Sheekh Umal oo aan anigu aaminsanahay sheekhnimadiisa iyo diintiisa heerka uu ka gaaray la yaxafiday oo aan wadaad kale maanta la mid dhigi karin inkastoo idinku badi mucaaradsantihiin haddana qofka nabi ma aha waa la dhaliili karaa oo asxaabi ma aha oo su'aal waa laga keeni karaa qofka waa Soomaali Sheekh Umal dawladdii Cabdullaahi Yuusuf sida ogtiin wuu ridiyay oo wuxuu yiri dawlad gaala ah waay sidoo kale Sheekh Shariif muusan jeclaysan oo wuxuu yiri dawlad sidoo kale ah waay oo wuxuu ku tilmaamay YouTube-ka ka heli kartiin iyadoo faahfaahsan maantana wuxuu imaado dalka ra'iisul wasaare Khayra ku soo dhaweeyay airportka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan weydiiyo maadaama anagu aan nahay dad aqoon leh oo cilmi leh oo wax isweydiin kara inkastoo aqoonteena dabcan ana aqoonteeda dabcan aydan dhihi karaan waxba idinku miisaama laakiin dad dabcan macallimiin ah siyaasiyiin ah indheer garad ah ayaa halkan ku jiray culimadiin intaba waxaan rabaa inaan weydiiyo Sheekh Umal Allah xifdiye madiintii uu ku ridiyay Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheekh Shariif ayaa update gareeyay mise isaga fikirkiisu wax iska bedeleen mise federaalki iyo waxa uu diidanaa ayaa laga saaray oo dastuurkii uu diidanaa ayaa la bedelay intaas oo jawaab ah ma hayo idinkana ma haysan marka Sheekh Umal waxaan u fahmay wadaad dantiis aqoon ah anuna dambaabeynin idinkana marqaatiga tiin maanta Ilaahay hortiisa taaganna dawladii waa dawladii
ولي دولتي ودولتي ولي الدستور كذي وضعتها نظام كذي كسعتها شرنا ورديي ما أنت إيربورك كسودوين مدحدي إسقوا ولي بالعقل جار وضع أنت ما حرّرت شو أمال يوحى وياها إنا يكون فسروا لبا قفك يسكون جيهن مع مريم قاسم أو وزير الجلجار كي مارين تمصيبين كقرنكا وقبدي وحلا فرشة لبا قف مركز إسقلافان وحلا فرشة أرنت جود مرحلة ده كدل وريك سنة يعني إيجا مريم قاسم وحي هاد قبدي صوماليات إسلام كأه دي وركيات إني سلا تجعنت وسلا تساس ده شركة نيويورك طبعا يونايتد نيشن كانوا كوريسان إني سلا تدي يدو طبعا إلى عشان يسدين تين إسلامك الله وبركة الله يفديه قف كنوع عاسى محيك ديدي كرتا إني قف سلا أنت أجنبي كأه حط سلا كوها ينا ولي بمثلا أنت ولي قف أجنبي كأه دلك الحديث والله إن المرين قاسم والله بان إنك ودارت إن أنا أقول المرين قاسم ولي الله هذين مقع إلهي بان كودارت ده سليدين dadkiina qaar dad ba aqliga fargeetir loogu shubay dad farxiye ka beer mugti waxa laga yaabaa dadkiina isdaan mareen qaasin ama la soo hadasha ama sasdeeh wallahi haday aaminaysan mareen qaasin ma garanayo waxa ay salaantaas u diiday ama gudaha dalka qof ajnabi ah inay salaantay u diiday waa aniga sida ila tahay waa diinteeda iyo aqeedadeeda ila tahay haday rabto ajnabi wana aba kartaa in laakiin anigu waxaan ku qiyaasaa waa diinteeda diris waa ka qaadi soo dhaw saaxiib qofka noocaas ay diintiisa ilaashanaya ma laga yaabaa inuu ummad qiyaano waa su'aal weyn waa su'aal weyn ma laga yaabaa qofka diintiisa aan u jeedno inuu ilaashanayo ma laga yaabaa inuu qof qiyaano ummad qiyaano Soomaali lacagteeda qiyaano waa maya waa arinta guud markaan ka hadalno dib markaan hoos u degnana waxa idin weydiinaa waxay tahay sheekh umal lacag kasta uu ka soo ururiyo waa wadaad waa lagu aamini karaa dabcan ilaahay xafdiyo waa lagu aamini karaa laakiin dalku dawlad buu leeyahay nidaam buu leeyahay wasaaradu leeyahay waa inuu soo maraa wasiirada gargaarka iyo maareynta iyo musiibooyinka qaranka iyada ku shaqo leh inay qabato ama ka guddoonto hadiyadii uu ka wada walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ama Nairobi caasimadda kuwaas ma mudneed Maryan Qaasin ma mudneed inay ka qabato shacabkeegiyo waxa ay weydiinaya Maryan Qaasin ma ahayd qofka mudan inay qabato gargaarka uu ximbaarsanaa Sheekh Umal oo uu ka soo qaado walaalaha Soomaaliyeed ma mudan tahay mise ma mudna haddaysan mudneen Sheekh Umal waa kaasa hadday mudan tahana Sheekh Umal ma aha intuu soo maro oo dhaho shacabka Soomaaliyeed ayaan gargaarkan u wada iyadoo la wicin waxaad xasuusatiin oo idin xasuusinaa jeclaan lahaa lacagtii haddii aan xisaabta dabcan $600,000 ayaan u malaynayaa walaalaha Soomaaliyeed ee Puntland ku nool iska soo aruuriyay waliba boosaaso bari u badan ee Abduli Gas madaxweynaha maamulka Puntland uu soo wakiisheen ee Soomaaliya la keenay Xasan Cali Khayr la sawirnaay wasiir kale wasaaraddan gabadhan Maryan Qaasin ma joogin goobtaas iyadaana ku shaqo leh maadaama ay gargaarka iyo musiibooyinka ta qaranka iyada shirkaas kama muuqan waa lagu bahdilay lacagtii uu umal keenana waxa la rabay in aydan la marsiyo hadii dawladnimo jirto waaye marka maanta ma aha waqtiga Cabdi Qeydidi musuudi ma aha wadaadka intuu wax keeno wax qiimo jira maanta dawlad sidan isla aaminsanaa dawlad Soomaaliyeed waa in wax loo maraa hadii maanta hubna la siinayo oo villain hub ee nagu deeqdo aniga ma soo qaadayo kaaran geenayo mise bakaaro wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya umar sii waay saas darteed iyaduna waxay tiri baraha bulshada ama Twitterkeeda ka dhahday waxaan uga tagay halkan isbarbaryac iyadana dabcan maamada waxaan leeyahay hadalkaas waxa mudnaa ra'iisul wasaaraha ina ku dhahday barbaryac ayaa socday isbarbaryac shacabka sababta shaqada uga tagtay qasama inaad ogeysiiso duruuf aniga qaasa dhigi karta dabcan sirta dawladana ila ma qurxooneen ina adna halka ka dhaadmaamo laakiin in laga gardaray umad Soomaaliyeedna way dareemi kartaa qodobka saddexaad oo aan rabo inaan ka dhawaajiyo waxay tahay dagaalka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Farmaajo uu iclaamiyay bil ka hor ma muuqata astaan dagaal maanta waa maya xiriirka kubadda cagta ee SACAF Africana Soomaaliya wuxuu tartankii caalamiga ah ee Afrika uga reebay marxalad dagaal ay ku jiraan inagoo maanta aanan ku jirin wax dagaal ah oo ay ka dhageysteen meediyaha kaliya madaxweyne Farmaajo ayaa dagaal iclaamiyay sidaas darteedna xulkii qaranka Soomaaliya looga reebay koobkii caalamiga ee Afrika wax dagaalana ma muuqdo wax juhdiina ma muuqdo sideedana inkastoo
qaacido dagaal ay jirto sida xisaabta qaacido u leedahay dagaalkuna u leeyahay marka aad la dagaalayso falaago ama dad mucaarsan dowladdaada waxaa jira nidaam loo maro oo ah laba maado waa kow haddii dadka aad la dagaalaysa adigoo dowlad ah ee falaaga yihiin ha noqoto shabaab ha noqoto maafiyada talyaaniga ha noqoto alqaacidada afghanistan ha noqoto drugska kuwa mexico ka dagaalama ha noqdaan ciddee doonto waad ka adag tahay soo maaha dalkan adaa maamushid waxaa la rabaa inaad adeegsatid shacabkan u sheegtid laba arrin oo muhiim ah waa kow in dadkaas ay jabeen lasii ugaarsanooyo falal way samayn karaa dabcan wayna ismuujin karaa dadku lasii ugaarsanooyo oo ciidan tallaabo dadka waa inaad tustid military oo aad ku ugaarsanaysid kuwa waaye lambar labo shacabka soomaaliyeedna waa inaad meediyaha uga sheegtid in aad guulaysateen oo aad ka adkaateen laakiin markaa shacabka soomaaliyeed aad ku tiraa waan ka adkaan weynay madaxweyne farmaajo oo aysan welina muuqan hab aad kula dagaalami kartid maadaama dadkan falaaga yihiin oo aanan baysas qabin oo aad kula dagaalami karto ciidan meel taagan aysan ahayn labadiiba kaama hayna waxayna u muuqan kartaa laftirkeeda fashil iyo hadal uun layska yiri oo aanan wax micno weyn kusii fadhin waxaa soo hartay madaxweynuhu dagaal ha galo ma xuma laakiin ma ogsoon yahay madaxweynuhu inaanu weli la magacaabin wasiirkii gaashaandhigga soomaaliya mase og yahay madaxweynuhu in qaranka nisa aysan lahayn wax sirdoon madax u ah mase og yahay madaxweynuhu in booliska uusan taliya lahayn maadaama nisa aysan jirin wax hogaamiyo gaashaandhiggana aysan jirin wasiir ay leeyihiin sidoo madaxweynuhu ugu suurtageli kartaa in uu dagaal ku qaado kooxda uu isaga u yaqaano cadowga maadaama hadduusan cadow u aqoonin keliya waa ula dagaali lahaa bal aniga madaxweynaha la fariisiyey maanta taas madaxweynaha ayay su-aashiis ku laaban doontaa iyo taageerayaashiisa oo qaas taageerayaasha madaxweynaha waxa u aqaana aniga qofka markuu madaxweynaha qaldan yahay kusii taageera ayaa taageera loo aqaanaa anagu farmaajo dalkan nagama xiga dalkan anaga iska leh dhalinyaraan nahay waxa dhinto ee dhammaado ee baaba'o waa dhalinyaro sidaas darteed marka annagaa laga rabaa haddii madaxweynaha qaldan yahay hadduu saxsan yahaba inaan labadaba sheegi karno ilaahay hibada isku siiyey waxaa soo hartay lacagta gobolka banaadir ciidamadu mushaar ma qaateen 6 bilood maya sababtu maxay tahay lacagta gobolka banaadir markaan xaqiiqda u hadlo dad bay qaraar ka dhigi kartaa dad baa xumaan kara dad baa caron kara wallaahi billaahi jaadka kaliya xogta aan haayo cawada aan idiin soo bandhigayo waxay tahay canshuurta jaadka laga qaado jaadka kaliya laga helo bardhay ama maalin walba ayaa u dhaxaysa 130,000 ilaa 139,000 oo doolarka Mareykanka ah oo laga helo isha jaadka kaliya canshuurta jaadka ma wax kale ma howl kale filin kale ma jirto waa lacagta laga helo ama canshuuraadka laga helo jaadka halkii bishii imise noqon kartaa waa 140,000 oo doolarka Mareykanka ah bishii imise noqon kartaa imise askar ayaa qabtiri kartaa lama hayo taas bedelkeeda xukuumadda Xasan Cali Khayre ee qaranka waxay diiradda saareen in ay ku dhaqaaqaan fal ay ku fashilmeen dawladdii ka horeysay oo ahayd in la isku dayo in maamul goboleedyada diiradda la saaro oo laga tuuro madaxweynaha hadda jooga ee la saarto nin isaga la saaxiib ah ha noqdo 8 February ha noqdo dama jadiid madaxweyne walba wuxuu isku dayayaa dabcan qof isaga saaxiib dhow la ah inuu kursigaasi saarto si uu si dhow ula shaqeeyo taas oo u muuqata mid aan sometimes dhicin oo lagu fashilmo waxa ku bixi karta se lacag ay u qalmeen askarta taagan midda kale waxaad ogaataan askarta dawladda nisa ha noqdaan boolis ha noqdaan traffic ha noqdaan military ha noqdaan xasilin ha noqdaan kuwa siyaasiyiin ma aha waa dadka u taagan dalka inay u dhintaan waa dadka u taagan in mar walba ay dhididkooda inoo huraan waa dadka u taagan inagoo ogsoon inaysan lacag qaadan banaanka taagan yihiin kuwaas mucaarada marna ma jirto haddii damiir la leeyahay laakiin madaxda hogaamiso ayaa mar walba qaladaad samayn kara lacagahaas oo dhan waxa raali ahaada kole soo gala waa damiyey lacagahaas oo dhan waxa lagu maalgeliyaa burburinta maamulada dalka ka jira qodobkaasna waan ka tagayaa waxaa soo hartay doorashada Somaliland inkastoo beesha caalamku haatan guddigii korjoogtada ahayd leeyihiin waxaa dhacay cilado farsamo
qaladaad yaraa jira haddana arrinta guud markaan kor ka eegno fifaaladu inkastoo aan weli lagu dhawaaqin kulmiye ayaa u cadcad guusha Somaliland ama ha ku shubtaan ama cadaalad ha u helaan ilaahay ayaa garanaya taas laakiin inta hadda aan xogta ku hayo kulmiye ayaa u cadcad haddaanse bulshada Somaliland la kaftamo kulmiye waxaa hogaamiyo Silaayo haddana waxaa hogaamiyo Muuse Biixi oo madaxweynaha lagu wado labaduna waxay ka dhasheen labada reer majority ka ah ee Somaliland habar jecel iyo awal fadhi ku dirada waxa laga leeyahay habar jecel iyo habar awal waxay u heshiiyeen in Somaliland talada Somaliland ee midba mid ay ku wareegto haddii warkaasi Somaliland ay xaqiiq yahay ما ها واحد أنتمي كرجال حجز أما بيلا كلا سوماليلاند وحن لا يهاي قبيل وواحد كفر دلودي واحد كفر دلي هدي أرنكاس أجرتو هرنكاس هدو حقيقي هاي أنا وحن لا يهاي شعب كإسحاق سمران دول بهانته هالكا ورسنجلي هالكا كوسجن أرنكاس ما هن مد قادن كران برشة سوماليلاند هدي حنتانا وأوكي الله نجع فيه هدي سن han aheena aan sal wax laga bedelo kulmiyana waxaan leeyahay hadii aad soo baxday ama ku soo bax nooca doonte guul ayaan ku rajeenayaa wadanina hadii inkastoo aan doorasho lagu dhawaaqin wadanina guul u rajeenayaa sidoo kale u cidna guul u rajeenayaa qodobka ugu dambeeyo raba inaan ku soo afjaro maanta waxay tahay marka faa'iiso wadani imayahow anigoon qofna ku xad gudbeen imayahow anigoon qofna target ku ahayn waxaan idin weydiiyay gabadhan faa'iiso wadani loo فيديو بقول جاري نصوت دوبتي بقول جاري أنا جاي نلهذش طبعا يسدد جار إنه أويسي وحف يسودني اللي هو استاج لا هي ويدين سؤال ما هو استاج أنا وهدي اللي استاج هاي ديار أنا ومدة كله وح إسهار مهم مدة وح بيقدرن بعد دت كسر معليات مركي ما أيجا ما جارتي سنة أيجا بدن يجا عقل بدن يجا دين بدن يجا علم بدن وحول بيجا بدن أني كإغلا يابنا war aamin dhool waa gabar walaashay warka waxaan rabaa aniga waxa uma qariyo haygu maana wax qariyo aamin dhool waa gabar walaashay waa gabar aan friends ma macnaha marka runta la sheegayo qofka isagoon lagu xad gudbina run la sheegi karaa de aamin dhool waa gabar walaashay sidaan ku sheegay way xanuunsatay gargaar ay ummadda Soomaaliyeed weydiisatay فنانين الصوماليين إنه أستاجي مسلمان سنة هين أردس شعب كيجيو شعب كصوماليين ذو وحن كهلا يو صح متى مسلمان صوماليين بقى أستاجي سديتهم كون أو ضرر فرت الله يساري فنانين كلي وبدناين إنك صار العاد شعب كلا جاروش لكن يا هرمود كيا وفنانين الصوماليين فيسودني آمن دول فنان واي فيسودني وميلتري أما ناس هنقطع أما هنقطع حسلني ما أنت سببت جبدا لوجو استهاج لا يا فنانين الصوماليين لوجو استهاج لا يهين ما حيتا علامة سؤال كسائل إجسار يدينا ولي إن الأهس ورني ما يودك وحقيقة بتهدأ أنت هاي صوت عسيدين أنا جهني يويني أنا ومدان لا يابنا واتاس قبلها فنانين تمر هاي هبلي ما ده هاي هدي أرنتم داعد إذا كتاهاي gabadhan marka si hadii loo fiirsho idinku hataa haween ah oo aad dareemi kartaan xanuun keeda oo marna hooyooyintiina iyadana hooyada aad dareemi karta qiimaha ay qofka u leedahay bulshada u leedahay sababta aad ugu istaag leedahay maxay waa sababta gabadhan lagu istaag laaya maxay kaga duwantaa umada kale maxay fanaan kaga duwanta Abdimaalig Aldon waa samafale caan ah dadka u ooleeyay dabcan anigu ma ark hadii laga yaabay inuu si hoos dabcan وقول شقي أنا ما أرق أنا أقول عن ليه فإيس ودني وجبر صوماليات فإيس ودني وجبر عيدك الصومالي كجرت وادت كمان إنه تاجن قرحل وجبر دمان عن كل دارن كرنو جبرها إنكسلو جبرها صومالي ولا له يهين تهم ميلتري تهم دلك قدقالن عن كسر عرنا أو قربان كجونا قرح هذه أتاجني فإيس ودني فرماجها كوه لين حسن على خيرها كوه لين هدي جبر رد على تعال هاد مانت إلهي بقى كل دارت رنتا كان لا ياي
hadday faiso farmaajo la dhihi lahaa maku tugsan leeda kulata intaas miga jawaabi kartaa faiso xasan cali khayr haddii faiso khayr haddii la dhihi lahaa maku tugsan leed adiga maanta kuma tugsan lahayn laakiin faiso magac kale lagu daraa inkastoo aan sida aan garanayo wadani maanta waa ku baahan tahay waana kalmadda iga xanaajisaa waxay tahay $3 haddaad ii soo dirtaan dhahde wax weyn ay igu fadhisaa war damir ma jira miya 80 kuna fanaan u aruurseene gabadhan miyaysan garabkeen ahayn oo walaal ahayn war hadda cawada yaa farta taagay dal kasto muxuu isku qori karaa haddaad fiilan ii dirtaan inta ka keeni karaa idinka keena haddaad 5 kun noqoto haddaad 10 kun noqoto haddaad 3 kun noqoto ummadaasaan dhex galaynaa laakiin intaan hooshaas gelin waxaan rabaa wadan kasta qof ma u xil saaran karnaa gabadhaas u galo fanaan ha sugin fanaan waxba ha sugin wuxuu faa'iido leeyahay ma laha ani weydii fanaan qiimaha uu leeyahay ka garo aamin dool uu istaagay faisan waa fiirsay ma dhahay aamin dool maxaa lagu istaagay gabar Soomaaliyeed walaasheen ah oo dhibaataysan lacagta u baahan laakiin maxaa la rabay fanaaniin Soomaaliyeed anahay aamin dool aan gargaarnay faisa maanta u soo jeednaa garabka noocaas ay mudnayd faiso laakiin in inta aamin dool 80 loo dhameystiro shiishada la iska fariisto oo waliba fanaaniinta gabdhaha Soomaaliyeed fanaaniinta qaarkood xataa ay damcaa inay Nairobi soo ku dhigtaan faiso jiifto damiir ma jira damiirkii what the fuck damiirkii meey sorry hada qaldan ugu soo yeeray wallahi damiirkayga ma joogo cawada gabadhan waa walaasheen markii hadlaysa fiiri waa ku walaashatay waa kugu diin waa kugu dal waa kugu af waa kugu dhiig waa kugu dheecaan waana kugu oysi maxaa ka daran dad kale dhintay oo damiirka ka dhintaa jiro dhahaya faiso wadani kaligeed miyaa xanuunsan faiso wadani kaligeed miyaa jajaban waxa yaraan ku siinaa example ah haddii aad taajirtahay lacag leh ama dhaqan oo qadadiisa karsan kara dadka jidadka maraa oo baahan miyaa wax siisaa mise qofka ku imaado oo baahan ku dhaa wax siisaa adiga Soomaaliya been isku sheegaynaa qof jidka iska joogo oo baahan og tahay inkastoo dadku wada baahan yihiin Soomaaliya jooga qaarkood haddana dadka wada baahan lacagtaada kuma tuugaysidee hooda waa baahantiin ma jirto qofka ku weydiisto oo ku dhaho niyo qadam ma haysto ama casho ma haysto ama si wax igiin ama caruurtaas asiga ayaa wax la siin jiray gabadhan way kula hadashay hadal kadibna wax yaala ma jirto oo aan gudnimo ahayn oo aan ceeb ahayn ma jirto war ma u istaagna dalkan yaasa ugu imaanaa oo safiir nooga noqon karaa dalalka kale aad joogtaan warnimayo sidoo isku dhaama taasna marka laga soo tagaba dal kale iyadoo loo istaagin ba gabadhan account leeda barteeda Facebook gabadhan number leeda please waa ku baryaa weligii social media qof waa ku baryaa kama dhihin waa ku baryaa faisa da $100 wad iska dir hadad 100 wad iska dir hadad 20 wad iska dir hadin Xasan Cali Khayr oo sugaysa war waxaan dadkan siyaasiyiinta aan u jeedaan oo farmaajo leege waad aragteen maanta hadda ku quus qadiisin aqliga haduu shaqeynay farmaajo maanta waa aragteen xitaa maanta haduu dhaw $400,000 dhiiba faiso wadana siina ma looga baahan waa maraan canaanana waay waa maraan kululeysana waay waa maray qaylisa waay waa maray shacabku isku bahdisho waay waa maraan oyno waay mu baahnin naga ilaahi magaciisa inaan u baahneen maanta haduu caawiyo sem waxba waxa soo kordhis maanta ma jirto laakiin waxaan rabaa in 10 u noqoto dadkii farmaajo dhahay leegay farmaajo waa wadani dal baa noo dhashay dawlad baa noo dhalatay faisan ninkii meel ugu tagay wallahi wuu kaaga tagaa meel wallahi magac ilaahan kugu dhartay waa madaxweyne waan jeclaa ilaahay calafkiisa kaga dhigay 4 sano loo gaamin doona haduu nool yahay anaga noolnahay laakiin faisu asuu jeeda ka tagay Xasan Cali Khayr ka tagay fiiri Turkiga markii la joogo Xasan Cali Khayr gabar baa u maad waxay dhahday waa u baahana wiil baa iga xanuus cunto muusan cunay video ay ka hadlayso dadkana u jeedo soo dhig Facebook wuu ka sii cararay markaas jaanis si dhahday markaas lacagta ma qabaw dhahay markaas 3 kun hadan ku siinaa dhahay wuu haya fiirtaas wuu dhiibi kara dadku istu saay faiso wadani mo dhahay hadan ku siinaa ilaahay baa kugu dhaarshay faiso wadani muu dhahay xitaa fiir markaa faysal wasaaratahay aad faiso kale lagu ceebaysan baraha social media baarlamaanka Soomaaliya hortay kara waa 200 iyo konton wax ka badan waay war min $500 ka jira dhawaan enough waay dhan kasta loo mari kara faiso wadani isaga account dawladda kaga bixi karo waa idin sheegay haday $140,000 ayaa cashuur jaad looga qaadaa wax kala ma bur ma saliid ma
adeeg kale maaha gawaari cashuurteed ma wax kale maaha waa jaad keliya hal maalin oo lacag cashuur jaadka laga qaado dowladda ay faa'iiso wadana siin karaan fiiri xigmadda ha shaqeyso daawo lagama qaadi lacagtii daawada waa gooni oo maalin walba Dubai Hindiya kasoo degta Bakistan kasoo degta lacagtii qalabka laga isbeer baatiska maaha gawaaridii maaha wax kale maaha 4 milyan oo shay noo soo degto waa jaadka 140,000 oo dollar laga helaa faa'iiso waa la fiirsanaya هل مليون أو دولار أي ننتهي لعتي لجود جبينه أي جلمدو يهرش بعله إلهي لقى عبصده إلهي لقى عبصده قبل الناس من آخره قف قصة الضمير له ور آخره والله والجوسو في رسنا هذا الدم خلنا حتى ليك باجرة ضد بان هاي نول إلهي لقى حشوده ضد هذا لقى حشونين ما دحري ديو إلهي كحشوده والله ناس المعارضة ما يجين مقع إلهي بكون دارته إيه حتى أنا يقول ما أنت صدق سنة جرا أياك waxaan garta garan laadiin idinko 7 sano jira what are you talking about madaxweyne Soomaaliyeed maanta daahay Facebook way qabaan WhatsApp wallahi billahi tallahi WhatsApp way qabaan Fiber ay qabaan email qabaan farmaajo email isticmaal wallahi ma ka la saadi wujeeda fiir wax socdo laakiin he don't care kala ma jeclo anigu maanta madaxweyne ah hadii farmaajo booskiis ay taagnaan lahaa baraha bulshada markii saas iskaga daba yaacay gabadhi masaakiinta qeylnas waxba la sumcada dawladeeda iyo midda madaxweynimo midda magaciisa ay u dhumin wallahi waa u istaagilaa inagu gubanay war farmaajo waa ka dhintay wallahi Facebook din agteedu gal dhintay wallahi qalbi dhagax wali ka aamusay isla maskaxda mulaya isbitaalka xabib ma geysin wallahi ma ah mucaarad intuu ka baxay ma baahbo waxan waa masiirkeen uu ku ciyaaray wallahi farmaajo إلهي خير أسي وح كلا شيء ما قفك مرجود جيني قبو حلا ولا سي ولا دعية لما هباري ما أنت في يسوي الدني فرماجو ما أنت إلهي خير أكوسي ما أنت في يسوي الدني الصوت ده ويسيد الخل بترجع هذه واقعهم ما هالكاس إري ليه في الكاميرون ما كعقليات إنجليز كني كم مدرس وزراء كم مدرك عقل أنت برايم مينسترك واحد هلكيس إنجليز بعد ما مالته بريتسون وقد دقي برايم مينستر ده الكيغ واحد ما أقول كلي وقد دقي أدنى قلب دقة حول جود أويا ديبت كلمة جعل حتى نتك أنت إمد مديس حتى فيري وإنه قول له قالت واير رالي ها وحتى مديكرت أنا قاعد ما تعالى ودي لها ميان كأفتان سنة ميان كان نصب سنة محيطها عكاك دونا أنا وبقرن واي نوين نواتا بالله هاي أمر رئيس الوزراء صدر صوح حاله وروحون ضدك أول صب النجا حتى ضدك إذا انت غير صح حتى والله بك جبتين قلب دقة حيفايز ودني لكن ويسخرنا ولي بس جيجنايا ورقفكم مركو خلدمو أباها النقض أديرك النقض وخلدمتها يا الوضن ولا كلا أدونك عيب ما هو خلدمتها المادير يالله وين جعلها المادير أنا معارض به لكن هاي هرت معارض كلا بقى من نوع معارض كوي هاي مدحدي من نوع معارض كوي هاي وحنا إلى سماية أنا ومرك هاي قف معارض كوا وحنا إلى سماية معارض كوا لكن قفنا معارض كوي إلهي معارض قف إيجا مديو وبلي سويس دجنا غير ما حقف كان كربتا كنت بدي قبل اللي هاي لكن وحن أنا ما أذكره أما هنا يقول جعله ولا حصل شيخ حسن أقول اللي يجري ولا شيخ شريفة أوين ولا كان واي كان كقدر ولقي ما بعركم ولا حصل شيخ خدي دور ديس أجبته تو ما ذو دك قنعنا إسكت ده أنا قنعي دور دي ده سانة أجبته أيضا مملين محو هاي ولا محو كان ما بحل كربي كان ور مدحوينها هذا الكاميرا من حتى وزير حتى وحنا صدرتها وزير النصر حتى رني وين السلام يا ثانك يو فيري ماتش وقتين غالية وحسيق دردارنا سومالية ضد إسلام عن هاي عمركم ما فوق لحدا سنة أدون كان قروح بدو ولا قتها بقول قفات نمتي أما هي بلا معارضة هي بلا تغيير وهو متريس سمكر الناس تاريخ كتجا إلى قفول بصومالية دو والله بالله نصب وها أباها هدو قلت من عليك أبي قرن كسانكم هبوا أيام نصبني ما نصبني ما أبيه وما هدي كرت أبا هدو قول كده يسمع حرام ما هدي كرنا هاي أنا ما هو عن حشانه أدون كلا قلت جاي عن إلهي كعبسنا قبل المساكين تفيسنا لو استاجوا فيسوا بعلم يجلو برا الله وفرماج إنه صندمير جريل كو جاد مش بس قلب ده يحس كناف فيسوا دين إنك تدوش كفير سنة فيسبوك كتجاي المليون دولار إنه يكون بحنا يحافين ولا أما إنه هرش بلا نعبه وحا قف بس السياسة ما قرني سنة واتساب أسكت ماشي فرماجنا وتاجرتي فيسبوك بس وحا صعد لما موجودين بعليك
dadka qaar waxay iskaga badan yihiin dad whatsapp iska isticmaalo facebook ay imaanayaan farmaajo madaxweynaha Soomaaliya waxa uu qabto mishaarka oo qaato madaxtooyada meesha ku taalo dawladdu waxay tahay ma federaal ba ma jamhuuriyad ba ma dimuqraadi ma garanayaan dadka qaar ba farmaajo la taageero le maqleen ba qofna lama taageero qofna lama jeclaada aabeen hooyadeen toona ma ahane wuxuu qabtaa qofka lagu mucaarada wuxuu qabto wanaagsan waa lagu taageeraa taas waa siyaasadda ma ahane qof nici kara waaba dambi xitaa kugu socdo inta niciis qof adima abuurate maada iskale qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala iskale qof ma mucaarad karto wiligaana taas iga dhaxlo qof ha mucaarada adima dhalin adiga ma abuuran lagu mu weydiinaa aakhir maxaa ka qosay qof mucaaradsa laakiin hadda awada ani qalad samee Cabdiqaadir ahaan dhamaantiin gabdhay wiilal waxay dhigi kartiin waxaas ba sameeyna kugu dhaliisanaa laakiin miska keenay adiga mu baantiin inaad dood igala qayb qaadataan intaan ka hadlay mise waa ismaac salaameena hadda diyaar u tihiin si xeeladeysan oo sharaf lana waa soo dhawaan kartaan marka intaadan qadka soo gelina ama soo dalbanahana waxaan idin sheegi lahaa qodobka aan ka doodeyno ayaa muhiim inaan idin sheego waxa ilaan qodobo badan ka hadla mugti dawlad aan wasiir gaashaan dhig lahayn oo taliye nabad sugid lahayn dagaal ma geli kartaa su'aasheed waa hadduu jiro qof qaas ama soo qaban lahaa qof dabcan intaan ka garanay saaxiibada in kastoo aad isku mid iyo wada tihiin meel walba joogtiin qof ama laba qof waxaan jeclaan lahaa weliba taageero dawladeed inaan qabto oo si asluubeysan u hadlaayo oo dawladda taageersana rabi lahaa maaha qof dawlad mucaaradsan taa uma baahni qof dawladda taageersana rabi lahaa cawada inuu ii soo galo taasaa muhiim ii ah waana ku duceysanayo beeshku waa ka duwan yahay ciwaanka oo qof lama soo qaban karo intii kor isoo fuushan uu soo qaban karaa laakiin qof aan bay isaga qiyaasi doona hadii uu qofkaasi dawladda qofkaasi inuu taageeraan muhiim ah ma jeclaan lahaay wallahi boqol qof aan iska jirto dabcan saaxiibkay dhuuqsana xataa waa jooga inta ku soo meeshan budulku waa dhantaa ayuu maleehaya dhuuqsana oo salaam walaalkii hal qof aan isaga baroobeena bal dadka qaar waa iska jijifaan video camera kama bixi karaan dadka qaarna diyaar u yihiin ma kala garan kara marka haddaa u baahan tahay hoos igu soo qor inaad ka qayb qaadato doodan dhuuqsan ma ka qayb qaadan lahayd doodan maxamed wuxuu dhahay aniga isoo qabo waraa aniga isoo qabo maxamed cabdallah haddaan kugu arko online-ka waa kusoo qabanayaa cabdallah waa kana cabdallah soo dhawow ebo waa u qawaaya qadkiisa u saamixi waaya isagana aniga soo qabanay meesha dhaw cusub marka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa qof dawladda taageersana rabi lahaa aan aqaano dabcan uma jeedo oo dawladda la dhacsan siyaasadeeda kow dheh anyway say noqotaba ha noqotee safii trasho daljire soo qaba daljire safii trasho daljire uma jeedo dad yaraa aniga u jeedaa dadka dhan uma arki karo waa 10 qofood ayaa arki karaa kaliya dadka arki kara haddaan kaga dhawaajiyay magacyadoodana waxaan arki karaa safii trasho najiib kaahiye cabdalla maxamed cabdullaahi cabdirasaaq anshax state iyo saki ibraahim qaali shire fardoos cali siyaad landheer banaan deg saki shariif asad burhaan axmed daahir rashiid ibnu yaasiin cabdiqaadir xaaji mo cashuur iyo dad kale aan badnayn marka dadkaas arki karaa ilma adeerayaal maxamed dhuuqsan adaa ku soo qaba dhuuqsan adaa ku baahanahaba dhuuqsan rageedi dhuuqsan haddaan ku weyn hadda kulay waa ku jeeday baaba haadaba dhuuqsan waa ku kana dhuuqsan qabo dhuuqsan kuma soo qaban karo baloga ka saaran qaybta qabashada anyway qasam maaha inaan soo qabto kulay xaqa loo hiiliyo adduunka waa laga tagayaa qeyr iyo qeyraad idin rajiyay xasanaad badan insha Allah thank you very much dhamaantiin waana maasantiin bye bye